taariikhdu markay ahayd 13 bishii 3aad 2016 abbaaro 9 subaxnimo waxay maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay gacan ku dhiigle ekis alifle booliis axmed cabdi maadey 28 jir ah ina khadiijo kuusow ku dhashay bu'aale ka tirsan saldhigga booliiska degmada Afgooye kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu dilay marxuum Maxamed Cali Cabdalla oo ka shaqaynayay meel timajare ah taariikhdu markay ahayd 5 bishii koobaad 2016 dilkaasoo ka dhacay degmada Afgooye waxayna ku xukuntay diyadii marxuumka waxaa racfaan ka qaatay xukunkii maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida taariikhdu markay ahayd 30 bishii 7aad 2016 waxay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay gacan ku dhiigle ekis alifle booliis axmed cabdi maadey waxayna ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii ay ku cadaatay in uu si bareer ah ula kac ah u dilay marxuum Maxamed Cali Cabdalla maanta oo ay taariikhdu tahay 22 bisha 4aad 2017 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq